waxaan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka tooshka dadweynaha oo aan markaasi kusoo qaadano toddobaadkaasi waxyaabaha ka cusub bulshada Soomaaliyeed ama social media dhan walba ha ahaatee waxaan soo qaadan doonaa abka lagu magacaabo Sweetcorn oo markaasi aaba Soomaalidu sanadkan ay fahmeen qof waliba oo soo qaadanayo ama hadallo kala duwan markaasi la isla dhaxmarayo abkaane waa ab lacag laga sameeyo sida jirto xaqiiqda balse sida Soomaalidu u fahantay iyo sida maaragtay qof walba u fahmay ayaa markaasi iyo sida ay u arkaan intoodaba abkan Sweetcorn yiraahdo waxa la sameeyay 2015 ilaa 2016 ujeedka loo sameeyay wuxuu ahaa dadka markaasi burburan ama cayilna ama faadka ah in markaasi isdhimaan ujeedku sidaas ayuu ahaa ama jimka aadan maadee ay cusleysanayaan in jimka aadan oo hilibka saarna iska dhimaan in markaasi ay u noqoto leeyahay tilaabo kasta ay qaadaan kunkii tilaabo ay qaadaanba lacag ayaad ku heleysaan sidaasina ay jirkooda u dhisaan ayaa loo sameeyay Sweetcorn 2016 ilaa 2015 waxaa aasaasay ninka la yiraahdo Olong iyo saaxiibkiisa Antonio labadooda ayaa ka fikiray abkan soo saaray waaya abkan sidee lacagta looga helaa marka laba haba waa looga sameeyaa labada haba looga sameeyo waxay tahay mid waa inuu qofku lugeeyaa maalintii ugu yaraan 1000 tilaabo waa inuu socdaa kaasi u ururayaan wax yar oo koonsi ah qiimahoodana ay ku fadhiyaan 1000 koonsba wax ka yar 2 senti dollar hadii laga dhigo 2 senti ay markaasi u dhigmaan kunkii tilaabo kaleetana 2 senti adiga markuu 4 oo u socdo 4000 oo tilaabo ayuu ururinayaa wax gaaraya 0.05 ama 5 senti sidaad u taqaanaanba ayuu ururinayaa abka sidaas lacag waa looga sameeyaa socodka ayuu ku xiran yahay hadii gaari saaran tahay ma ku shaqeynayo hadii aad meel ku xirto sida Soomaalidu ay sameynayaan marka uu soo gaaray ay u ruxayaan lacag ma ku sameynaya abka wuxuu ku xiran yahay location-ka aad joogtid meesha aad maraysid tilaabada aad dhigaysid inta tilaabo aad qaado location-da aad maraysid ayuu ku xiran yahay kuna biisaaman yahay hadii gaari aad saaran tahay ma ku shaqeynaya adiga wajijaabi waxaa loogu talagalay dadku inay isku dhimaan qofku uu jimicsi aadayna cuntana uu iska cuno maalintiina uu cimiladaas arkayna guriga iskaga jiro dhibaato badan ay gaaraysa sidaas darteeda in uu dhidido qofka oo socda ayaa loogu talagalay habka labaad ee lacagta looga sameeyo waa inaad u dirto dad badan lagu maalgeliyay 13 milyan kambaniyo badan ayaa ka qayb qaata ay kamid tahay Apple ay kamid tahay Microsoft kambaniyo badan ayaa qayb ka ah oo inuu abkan sare u kaco dadkuna ay ku shaqeeyaan qaybka abkan kooda ugu horeysa lacagta waxaa lagu furayaa $25 $25 waa marka u dirtid wax badan aad socotid 30 qofna aad ku casuuntid oo u dirtid oo ay sameystaan ciwaankaaga ay ka sameystaan ka adigu sameysato markay ka sameystaan 30 kaas qof waxa ku furmaya $25 inaad kala bixi kartid sidoo kaleeto markaad intaas ka badan u dirtid ilaa 100 qof aad u dirtidna waxa ku furmi doona ilaa $40 sidoo kaleeto marka intaas dadka badan ilaa 200 u dirtid $100 ayaa ku furmaya $500 waxay ku furmaysaa marka u dirtid inta u dhaxaysa 772 ilaa 803 meelahaas inta u dhaxaysa ayuu ku furmaya dadka lacagaha ka sameeya dadka ugu fudud waa dadka caanka ah ee dad badan markaasi u diri kara ama Instagram-kooda soo saari kara ama Facebook-kooda soo dhigi kara ama YouTube-kooda soo dhigi kara dadkaas wax dhaxa kuma qaadato in abkooda la sameysto kadibna dad badan ay ku casuumaan laakiin bisha September nagu soo foodala ayaa la firayaa in koonsiyadaasi aruuraya ay ka dhigaan lacag la yaqaan oo la bixi karo maadaama dadka dhan aysan dad u wada casuuman karin ama aysan wada arki karin Soomaalidu sanadkan ayuu soo gaaray sanadkan 2022 ayuu soo gaaray ka hor maaragtay
dad badan way arkeen laakiin sida hadda uu yahay aba faalisaha waxaa jira lacag baa laga sameeyaa inta la yiraahdo dhibaato ku keenay abkan taleefankaaga hadduu ku jiro dhibaato ma ku keenayo waa ab maaragtay la controlay oo wanaagsan oo taleefankaaga dhibaato ama virus waxba u keenaynin markaad sweetcon aad raadisid research aad ku samaysid waxaa arkaysaa intaas oo qof oo cadaan oo ka sheekeynaysa oo ka shaqeysta oo lacaga kala baxay sidaan u fahanay ma ahan Soomaali hadii aan ahay inaan maaragtay dhalinyaro badan waxa arkay TikTok-ga meel ku xiray ama marwaxad ku xiray wareejinaya sidaas ma aha sida saxda ah waa socodkaaga ay ku sameynayaan dhaqdhaqaaqa taleefankaaga hadii aad jeebka gashatid tilaabo kasto aad qaadiskoon waxa ku soconaya steps-kaasi maanta intaas step ayaa gaartay lagu dhahayaa kadibna ama 2 koonis ama 3 koonis inta aad socotay ayay ka dhigan tahay inay markaas ku soo xareynayso lacag waa laga sameeyaa dad badan qaba inaan lacag laga sameey karin lacag waa laga sameeyaa dad badan ayaa kala baxay laakiin ujeedku waxa waaye inuu dad badan gaaro abkaani ee lacagtii lagu xareeyay ee 13 milyan ahayd in laga soo celiyo hadda 9 milyan ka badan ayaa markaasi degsatay abkan oo sameysatay ujeedkooduna waa 100 milyan inay gaaraan targetka ay leeyihiin waa 100 milyan inay gaaraan oo markaasi ay u dabaaldegaan bisha September ee nagu soo food leh ayaa koonasiyada kuugu jira ay noqonayaan waxay noqonayaan ku sheegi doonaan dad badan ay sidaan u soo bixin markii ay sameystaan ama laga yaabo inay qaybta koro isha ah ay ugu qoran tahay intaas oo kun oo koonasina u aruurtay laakiin aysan u furmin waa la infadgareystaa waa la sameystaa request loo dirsadaa kadib ay ku soo furmaysaa oo hore ma kaaga furmaysaa laakiin shuruudo badan ay ku xiran tahay inaad baratid oo aad sameysatid intaas ayaan ku soo koobaya barnaamijka tooshka ee dadweynaha focuskiisuna oo noo saarnaa sweetcon iyo sida uu shaqeeyo iyo wuxuu yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.